waxaan salaamaynaa qurbajoogta iyo idinka wakiilkaba ka ah ee na soo gaarsiiyey waxa aan u baahnayn ee dhibaatadii aan haysatay na soo tabay in weligeed cidna soo tabtay hayla jirin dadku wuxuu ku maamaahaa nina dhalashuu kugu dhiidhiyey nina dhowri buu kugu dhiidhiyey dhalashay ku dhiidhiyeen maanta kuwa halkaa wax na soo tabay aad baan weligayaba ma iloobayn weligaya ku miya jooga iyo ku magaalo jooga waxaan iloobi karaynaba maahaba maanta sida la noo soo tabay walaa inoo tabeen waxaan gaarsiinaynaa naga gaarsiisaan waxaan iloobi karayn ka dhalana xito doona ka maanta jooga iska daayee ka dhalan doona waxuna iloobayn ba soo sameeyeen maanta waxaan soo sameeyeen waa wadankiini dalkiini dadkiini miskiidka maanta aan joogno iyo dugsiga saaka aad joogteen labaduba saasi qabiil noogu noqdeen labadiiba cid kale ma haysan annagu bayna haysteen hadday miyi tahay hadday magaalo tahay dhibtii annagu bayna haysatay waan isla daalla markaa miskiidka iskuulka halku jooga wadalkiisii miskiidkiina wataa amuudi iyo wixii la qurayo ee dhiski noo socdo wax kaloo cidoo caawimo kale ma nanayn maantase waxba naga hadhadho farax ku qabnaa iyagoo qurbajoogtii dibadda walaalahayaa ee waddanka u dhashay iyagoo la soo tabay ayaana waxa iloobi karin weligay ay tahay waxaad naga gaarsiisiin waxaanan iloobin baad soo samayseen tii koowaad beeyaan hadda kadibna waxaan ka filaynaa wax walba inaad noo soo qaban kartiin saasaan ku salaamanaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa dhalinyartana soo gaadhay ee soo xasuustay walaalahaya maadaama macnihii hawl adag meeshan ay ka jirto baahi badan aan qabnay maanta wax farxad ballaaran ayay nagu tahay oo macnihii aad macnihii u qiimo leh oo taariikh gasha taasaan aad iyo aad macnihii walaalahay bulshada hawsha macnihii ay maanta hadiyada ayna soo gaarsiiyeen ee baahi aan u qabnay awood la'aan macnihii maadaama laba hawlood oo macnihii ay jirto hadday masjid tahay hadday maxaan ku dhahay dugsi sare tahayba kulli hawl macnihii adag oo ballaaran ayaa jirtay taas hantida iyo macnihii waxayna soo gaarsiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mahadnaha naga gaadho inta kale walaalahay dibadda ku maqan waxaan leenahay sida iyo macnihii walaalahay macnihii noo soo xasuusteen in inuu kala baahida darteed ay jirto in macnihii ay taas aad muujisaan baan naga rabnaa sidaa darteed waxaynu hadda dhex joognaa masaajidkii magaalada oo la dumiyey oo saaskii laga bilaabay hoose oo hadda socda isaguna oo aan codsanayna in laga soo caawiyo masaajidkaasi oo dhib badan runtii dadaal badan ay bulshada u geysatay sidaa daraaddeed waxaan mahadnaq u jeedinaynaa jaaliyaddiina soo xustay ururkaasi markaa jaaliyadda ah ee dhallinyaradii deegaankan ka tegtay ee mays guddoomiyaha ururkaasi axmed sheekh ibraahim caateeye iyo dhammaanba bahdiisa waxaan leenahay dhammaan waxaan ugu soo gudbinaynaa salaan bulshaweynta deegaanka dhar wanaaji aan kaaga sidna dhammaantiinba adiga iyo inta kale kula bahdaba waxaan gaadhsiinaynaa salaan qiimo leh oo aad u qaayale oo aan maanta ka hor la arag waxaana maanta noogu horraysa jaaliyad wax soo dirta oo keenta deegaankan dhar wanaaji waa tii ugu koowaad ee u soo dirta dugsigan sare hadiyad amaba deeq ay soo gudbiyeen kuwa soo gaadhsiiye koowaad weeye sidaa daraaddeed waxaan leenahay waxyaabahan kale ee dugsiga sare iyo dhakhtarka iyo jidka oo isaga laftiisu inaan wax ka qabanno u baahan iyo magaaladaba iyo dalka inaad dhisataan deegaankana aad dhisataan lafteeda oo sida qurbajoogta kale u dhisato dhulka kale waa inay qurbajoogtii deegaanadan u dhalatayna dhisataa iyadu ooy ka muuqataa deegaanka iyaga laftoodu ayaan idinku boorinaynaa idinkana ha ahaato dhinacyada qalabka lagu shaqeeyo ha ahaato dhinacyada dhismaha ha ahaato iyadna dhibaatooyin badan oo xagga disaasariska masiibooyin ku dhacay duufaano marwad ku dhacday baa jirtay halkan waxaa naga dumay 6 qol oo ah qolalkii aan ku shaqaynayna baa naga dumay ilaa maantana ma hayno cidno dayactirta dhowr jeer horena waan isku daynay inaan u sheegno kanalka inaan u sheegno dawladda cid walbana waan gaarsiinay hay'adii cid walbana waan gaarsiinay maantana waxaan idin sheegaynaa idinkoo ah qurbajoogteedii u dhalatay degmada Awbarre gaar ahaan qabalaha dhar wanaaji u dhalatay oo naga soo booqatay maanta Boorama ayaa waxaan idin sheegaynaa in dhibaato noocaas jirto sidaa daraaddeed qurbajoogta waxaan ku boorinaynaa si ay maanta noogu yimaadeen si ka ballaaran deeqa badan ay noo soo gaarsiiyeen ayna noogu yimaadaan waqtiyo badan ayna ka ahayn maanta oo kaliya sidaa daraaddeed waxaan eega inay tusi doonaa qolalkii dumay iyo qolalkii jiingada ay tabaysho qaaday intaba waan tusi doonaa
shaqaalaha aniga magacaygu yahay Axmed Cabdilaahi Barkad ahna madaxa Center Dibir Wanaajin waxaan halkan ka caadeynayaa qolalkii aan ku shaqeynayay qolalkan ku shaqeynay oo kala qolkan waa qolkii delivery-ga ama hooyooyinku u muleeyeen sida daraadeed qalabkiisu nooma fila soo kale uu yar yahay space-kiisa aad u yar maadaama uu yar yahay waxaan codsanaynaa in qolal kale oo kuwan ka waaweyn oo ku shaqeyno lanoo sameeyo oo nagu caawisaan sida daraadeed waxaan kaloo u baahanay qalabkiisii oo dhammaystiran sida sariirihii hooyooyinku ku umuleeyeen imika hal xabaa taala halkan xabo maahan mid kaloo kala taala labadaasoo kaliya haysanaa marka in loo ballaariyo oo qalab xagga delivery kitka la yiraahdo noogu daro oo noo keena ayaan niga rajaynaa kana sidoo kale waa qolkii dawada maadaama uu qolkii dawada yahay dusha ayay jingadii roobku ka qaaday dabaysho kabacdi roobkii soo galay roobkii markuu soo galay tan oo kale uu sameeyay bilaafankii baa soo go'ay roobkii oo dawada halkan taala ayuu roobkii dusha ka soo daayay mar walba sida tan oo kale karatoontan uu naga qooyay dawadii kale sharfiska taalin oo kan iyadna soo kala qooyay marka dhibaatadaas waxaan rabnaa in wax noo qabto dawladda بسم الله الرحمن الرحيم دكتور كان وصل حد الرناتشي ما دكتور ما نرتاي أدويه كوبين هاي كوبي لو تفصل أرتدى اللي قتها وحوي أن لو كون صدق بقاشة نصتهم لو كون صدق بقاشة نصتهم هو كوبات إلا سديدات دكتور كان بيحق قرار معلمين ده صوت المعلم لبى كلنا وخلاص سأسأل دكتور كان كل واحد وجوين وبهني وحوي أن لنا ما نرتاي تيعترك فصلات الجودة وما نرتاي أنت بدن عن الهين سبب يوم مرتين جاجو من كوست الرجيم واحد كله يقول إنه حبي حاجة قلبين مرتين ليبرير تكسبن منه هرب مرتين خلاص تم أيو أرتين كل ما كابيال مرتين تيجي واحد برشة كل سوق هذا ومعلمين ويا تكسبن وايد خبرنا عن هين يوم مرتين قوتي وحلقوا آخر سنة هاي كلاس تكى أرتين مرتين عن الهين حسدها يعني كل آخر سنة هاي واحد يقول يدكسب وينه وتاس حيا واحد كله يدكسب وينه هاي مرتين دينا ينفصلها وما درتي فصلتي هوري وقتي دقيقي ولا دسي أو أها ستة فصل حتى ما درتي فصلت أي شيء قط ومسارنتها وما درتي عن هوست لهين ساس درتي مركا أنا أبغى هنين حتى عن هالي كارينو فصلت عن سكيب بدلنا وما درتي فصلوا عن أسبوع عادي عن هلا سي ما درتي أرتي ماشي كوجكتي عن هذه الشركة حل كستو ما درتي جوا وحن كبغنا معاها أنت بايش يروح كاسي هي أرتي فصلت الجوابي ما درتي كقاطو marka fasalada sina aad baan ugu baahnaan lahayn adeer dixdan iminka aan dhex soconay aga garaan la yiraahdo waa deegaanka Jibriil Yooniska bartankiisa weey marka qol ahaan la sheegana reer Maxamuud ka u badan marka qol ahaan la sheegana reer Maxamuud ka u badan wax weeyaan dixdii harawa gafuurkeegii bari weeyaan marka waa dhulkii waagii hore magaca lahaa wadulkii hore waagii hore xoolaha lagu dhaqan jiray qabriga imka dixda markaan ka talowno waa qabrigii Abdi Xunduble ninkii markii xoolaha la yiri hal cashuura la yiri ma garanaysaa xabashadii u soo baxday ninkii ahaaya ajaayibka ahaaya Abdi Xunduble ma meesha saddexda xabashi ku dilay oo gacantiisa ku dilay waranka eebadiisa ku dilay weeyi waa meesha taariikhda leh waa meel ma garanaysaa dhulkii dadkeenu ku dhaqmi jiray waagii hore imikana beeruhu bedeleen weeyi dhulka markaa taariikhdiisu waa sidaa meeshana aga garaaceen ceelo baldaan la yidhaahdaa waa dixda biyaha jeekaha ma garanaysaa jannabatalow ilaa awbarre ilaa jufada miciga leh biyaha soo maraa biyaha ka yimaada halka soo mara halkaasay harawo ka galaan markaa وانا دقانك جبريل يونس برتن كذي ويي جبريل يونس كان قلهان مركا لسيكا لقاضو رين محمود يا أقو بدن مركا وادح دا هروي كفافتا مركا وادح قوقي فايدة دا وحويا قب بيلا دا هاي ديمال قرع بيلا دا هاي ديمال خاصة ما كرنا يسوي جلال كيف حولو كن يا كوبحان قوقينا قول الكاسة ودا تكاد نقطة حولو كوبحان marka waa dixda quruxda badan laga arkayso